taageerayaasha beesha gabooye xaafadda Madiina ee magaalada Buure xarunta gobolka Togdheer maanta munaasabad kooban warbaahinta kula hadlay xisbiga xisbiga wadani ee xaafadda Madiina waxay ka hadleen taageerayaal habeenkii xalay ah xisbiga muxaafidka kulmiye ka soo dhaweeyay isla markaana sheegay inay ka soo jeedaan beesha gabooye sidoo kale waxay sheegeen in beesha gabooye ay taageersan yihiin xisbiga mucaaradka isbeddeldoonka ee wadani munaasabadan oo ay mid soo buuxdhaafiyeen salaadiin cuqaal waayeel waxgarad haweenweyne tiro badan ayaa ahay mid laga dhaxdheehanayay hal doorka iyo labeenta beesha gabooye waxaana hadaladoodii kamid ahaa mowqiftan halkan ummadda isku teenay waxa weeyaan waxaanu cadaynaynaa beesha gabooye haddaanu nahay arrin xalay dhacday oo xisbiga kulmiye uu sameeyay oo khalada ayaanu ka jawaabinaa maanta waxa weeye martii gabooye midoobay martii xaquuqdiisii uu soo saartay ee uu mid noqday inuu maanta xisbiga kulmiye ilaa lacag baan idin siiyaayo maatadayadii soo dhex dalo beenna uu u sheedo waa waxaan dhaci karin dumartii xalayto caruurtooda laga taxeeyey la yidhi lacag baa laydin siiyaa iyadoo wada baroorayay soo noqdeen waxaan halkan ka caddaynayaa in arrinkii xalayto ka dhacay hodheelka la yidhaahdo nayuu burco dadkii isugu yimid inaanay waxba ka jirin ee salaadiintii iyo culqaashadii iyo garaadadiiba intuba halkan ay tuman yihiin waxaase la yaabanahay nimanka saqda dhexe intay soo guuraynayaan magaalada intay soo galaan oo iyo dadkii intay u yimaadaan dumarkii intay guryahoodii u galaan waxaanu tusinaa $20 baan tusinaa kaalaya noo taga xafladda beelaha gabooye inay israaceen oo ay midnimo qaateen oo midnimadaa ku qaateen xisbiga wadani malihin wadani soo malihin ha helo coodka musabix wuxuu bishaahid baanahay raaf baan gelayaa miyaanu ka bixi karaa talyaanigu wuxuu idhaha tantaanadi beegaro meel iyo untornadilyoone boqol sannadoodaynu aynima ku noolaadno maalin kaliya libaxnimo ku dhibatay nooga wanaagsan aynu nahay wadani baynu nahay maalintu iyada waxaa nooga sharaxnaba xisbiga annagu galo marnaba maanaan taageerin annagu kulmiye laba nin uu shaashad keenay iyo saddex nin uu shaashad keenay waxa weeye waxba ku qaadi maayo muhiimaduna waa codka kulmiye annagu waxba nooma yaala waxaanu nahay xisbiga wadani wax uu gabooye u hayaa ma jirto maanta waxa wax inoo haya ama dhinac walba wax inoo haya wadani waxaa isugu yimid beelihii gabooye oo 4 beelood ka tirsan madhibaan muuse tumaal iyo anas waxaan halkaa aan inii caddeynaa inaanay matalin nimankii xalay hudheelka ku qabtay xafladda ku qabtay inaanay matalin beesha gabooye waxa matala sulaadiintan hareegteeda taagan iyo cuqaashan taagan laakiin xisbiga kulmiye inuu isku sawiro beelweynta gabooye ayuu wuxuu ku bixiyay 20 maydisinaya kaalaya intuu bas soo dhigtay buu yidhi qof kastoo $20 sinay soo raac baska dadkana waa dad mabda' leh waa dad hadaf leh waa dad aragti leh waa dad higsi leh waa dad adoo kale ah waxa doonaya weey kulmiye wuu dareensan yahay in gabooye ka quleelay oo ka dhaqaaqay ragga qaar baa waxay u bixiyeen dulmiye bimacna waa dulma uu ka samaysan yahay basho uga gudbinaynaa gudida anshaxa komishinka iyo madaxda sare ee komishinka waxa xalay dhacday faragelin qaawan oo olole lagu bilaabayo beeshan dhexdeeda kaarka aan tusayo waa kaarkii xalay waxaan soo galay isaga lacag la isku lifaaqayo xaaskayga loo dhiibay Axmed Jaamac Xajaadan Axmed Digiro muqbayaha telefishinka caalamiga Soomaaliya News TV Boorco